kusoo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka qodobada wararkeena ugu waaweynna waxa ay kala yihiin shir loogu magac daray shidweynaha haweenka ayaa muqdisho lagu qabtay iyadoo toddobaadkan dhammaadkiisna loo dabaaldegi doono maalinta haweenka adduunka faahfaahin ayaanu idinkaga haynaa shirkaasi warar kale caawana waxaa ka mid ah xabad joojinta dagaalada Yemen ayaa lagu soo waramayaa in aanay caga adag ku taagnayn warbixin gaar ah ayaanu idinkaga haynaa furunta hore ee dagaalka markii shanaad ayuu doonayaa inuu isu soo sharaxo iyadoo ay maalmo socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha Algeria Bouteflika ayaa isku diiwaan gelinaya musharaxnimadiisa doorashada soo socota faqidada ciyaaraha ee caawana waxaanu ku eegi doonaa ciyaarihii ugu dambeeyay horyaalka Ingiriiska iyo qodobo kale kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waanigu waa maxamed cabdi xaraar idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa maanta muqdisho ka furtay shir loogu magac daray shirweynaha haweenka Soomaaliyeed shirka waxa uu socon doonaa 3 maalmood waxaana la sheegayaa in ujeedada ugu weyn ee shirkan loo qabtay ay tahay in la doonayo in la diyaariyo axdi qarameed u gaara haweenka oo ku aadan dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada sidoo kale waxaa diiradda lagu saari doonaa shirka in la hubiyo lana hirgeliyo xuquuqda ay haweenku ku leeyihiin dastuurka dalka wasiirka wasaaradda haweenka Marwo Deeqa Yaasiin oo BBC-da la hadashay waxa ay tiri waxaa jiro fursado qaali ah oo wadanku u marayo oo ay ka mid tahay dib u eegista dastuurka sharcigii doorashooyinka oo gacmaha lagu hayo oo xukuumaddu ay ka shaqeynayso iyo midkii asxaabta siyaasadda shirkan 3 beri socon doona oo haweenka Soomaaliyeed isugu yimideen dhinaca maaragtay gobolka Banaadir maamul goboleedyada xubinta ka ah dawladda federaalka iyo dadka haweenka Soomaaliyeed oo ku maqan dibadda ayagana aan ka casunay isla markaa waxaan kaloo aan casunay dhalinyaro rag dhalinyaro ah oo mar walba u istaagan maaragtay inay maaragtay xuquuqda haweenka ka hadlaan waxaan marka aan sameyn doonaa maskax shiil oo 3 beri kadib aan rabno inuu naga soo baxo axdi maaragtay qarameed oo haweenka oo kadibna la horgeyn doono madaxda ugu sareysa ee dawladda si ay maaragtay ugu dhaqmaan oo ansixiyaan fursadaha aan sheegay ee ah dib u eegista dastuurka waxay uga faa'iideysan karnaa in la helo xuquuq ha noqoto dhinaca shaqooyinka la isku doorto kuwa la isku magacaabo iyo maaragtay dhinac walba oo maaragtay haweenku ay uga faa'iideysan karaan anaga marka hadda waxaan haysanaa fursad aan maaragtay dastuurka hadda gacanta lagu hayo aan ku qori karno arrimo maaragtay xuquuqda haweenka hor u sii wadaaya maanta meesha aan joogno waagaagtaasina waxaa ahayd wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dawladda Soomaaliya Marwo Deeqa Yaasiin oo ka hadashay shir maanta Muqdisho lagu qabtay haddii aanu eegno dhanka Yemen dawladda Yemen iyo fallaagada Xuutiyiinta ayaan wali dhaqan galin qorshaha xabad joojinta ee qaramada midoobay waday ee dekada ugu weyn ee Yemen ee magaalada Xudayda 3 meelood 2 meelood nolosha dadka Yemen ayaa qarka u saaran macluul waxaanay ku tiirsan yihiin dekada kumanaan ayaa ku dhimatay dagaalka 4 sano ka socday dalkaasi ee u dhaxeeya fallaagada Xuutiyiinta ee ay Iran taageerto iyo kooxaha la dagaalamaya ama isbahaysiga la dagaalamaya aan iraahday ee Sacuudiga uu hogaaminayo kuwaas oo taageersan dawladda Yemen Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya waddo boor leh ayaan sii marnay si aan u gaarno mid ka mid ah safka hore dagaalka Yemen isbahaysiga horumar ayay sheeganayaan in ay dib ugu riixeen fallaagada Xuutiyiinta buuraha bartamaha dagaal kulul ayaa ka dhacay tuulooyinka halkan ku yaal rayidna kuma harin ciidamadan waxay ka yimaadeen waddanka Suudaan waxayna qayb ka yihiin isbahaysiga 9 ka kooban ee Sacuudigu hogaamiyaan alxamdulillah la wadax fi hadii المنطقة imika xaaladdu way qabowday markii hore aad bay u kululayd ciidamka Ilaahay waxaan rajaynaynaa inaanu hore u dhaqaaqno oo u socono awoodda waxay ku xiran tahay isbahaysiga
balse dagaalka 4 sano jirsaday ma muuqato in uu dhammaanayo. cid kastoo ku lug leh dagaalka waxaa lagu eedeeyey burburin toos ah. wasiirka warfaafinta Yemen wuxuu sheegay in xuutiyiinta halkan ka dhigeen meel aan lagu noolaan karin. طبعا تلاحظوا ما فيهاش ناس لأن كل المناطق مفخخة. cidna halkan kuma noola maxaa yeelay waxay dadku ka baqayaan inay dib guryahooda ugu soo laabtaan. xuutiyiinta ayaa miinooyin ku aasay meel walba. malaayiin reer Yemen ah ayaa dagaalkan ku barakacay. qoyskan reer Bini Xadaad 2 jeer ayaa lagu qasbay inay qaxaan. teendhooyinkooda waxay ka dhisteen dhulka bannaan ee ku yaalla xadka Sacuudiga. Saalax iyo qoyskeeda way jiifeen markii firir soo galay teendhadooda. xuutiyiinta ayaana duqeeyey waxay dileen carruurteenna iyo carruurta ay sii dhaleen. wiilka aan ayeeyo u ahay ayay madaxa ka jareen. waan heli weynay nolosha ayay nagu cadaabeen. geedi socodka nabadda Yemen waa mid jilicsan. xabad joojinta agagaarka xudaydana ma xoogana. dhinacyada dagaalamaya waxay isku mari waayeen sidii horay loogu sii socon lahaa. maalin kasta dagaalka wuxuu abuuraa dhibanayaal badan. وهاجك بالمركز هدي أنا وجدنا قضبة كلا يكجرا ورك عوا. مينغ وانزو أو ماذا حسرة شركة التكنولوجيا هواوي أي دعوة كوكتي دولة كندا قاب كي أي أمرين حرق جدي سنة كي هراء قرنا ذا أي شيء قرنا ذا أي شيء إن الشرع الدرو أهيد سيد الله حري لو باري سؤالنا لو وديي waxaa lagu eedeeyay in ay ku xadgudubtay cunaqabataynta Mareykanka ee saaran Iran sidoo kale waxa shaki la geliyay ama shaki laga qabay in ay wax isdabamareen ku kacday laakiin iyadu waa ay beenisay in ay wax sharci darro ah ku kacday dalka Mareykankana ugu yaraan 23 qof ayaa la dilay qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay duufaano ku dhufteen bariga Alabama caruur ayaa la sheegay inay kamid ahaayeen dadka halkaasi ku waxyeeloobay dadaalada samata bixinta ayaa la hakiyay ilaa inta waagu ka bariyay iyadoo laga cabsi qabay in howlgallada xilliga habeenka ay halista sii kordhiyaan mas'uuliyiinta ayaa sheegay inay suurtagal tahay in dad badan ay wali ku hoos jiraan guryaha burburay taranka degdega ee isku xira dalalka Hindiya iyo Pakistan ayaa dib loo howlgeliyay kadib markii loo hakiyay sabab la xiriira xiisada colaadeed ee ka soo cusboonaatay Kashmir xiriirka u dhaxeeya labada dal ayaa si weyn u sii xumaaday kadib markii koox xag jira oo Pakistan xarun ku leh ay qaaday weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay dalka Hindiya daraasad British ah ayaa lagu ogaaday in dadku ay si aanan ku talagal ahayn u doortaan lamaana ay isleeyihiin cimriga ayaad isla dhamaysan doontaan cilmi baarayaasha jaamacadda Edinburgh ayaa sheegaya in bini'aadamku ay si dadban ama sida badanba ay doortaan qof ay xitaa xanuunada isku jaalka yihiin sida qof ay wada qabaan xanuunka sokorta ama xanuunka wadnaha وهجاج كدب مالمو دبت بحيو أي السعودين كواسو لجود ديدنا مشرح نمديس أيو مدحوينه عبد العزيز بوتفليقة اسكت ديوانجلية مشرح نما مدحوينه دورشوين كمدحتويدا أي الله فيليا إن يدعان بشا أبريل أساس عطا لكن وحو سمية تناسل وين السجع والشيء إنه هالسنة أو قرة حكم كهين دونه عبد الرحمن بدان حاج داهر أياك ورمية mar labaad ayaa banaanbaxaya ka socdaan dariiqyada waaweyn ee magaalada Algiers iyadoo ciidamada ka hortagga rabshaduhuna ay halkaasi hor taagan yihiin dadweynaha banaanbaxyadan ayaa socday 10kii cisho ee ugu dambeeyay waxaana ay rabaan in ninkani dhanun u dhaafo waa madaxweynaha Cabdulcasiis Abutafliqa dadka ka soo horjeeda ayaa sheegay inuu yahay kalidii taliye waxaana ay sheegeen inuu xukunka haystay 20 sanadood ugu dambeysay isagoo ay ka go'an tahay inuu mar kale xukunka qabto bisha Abriil doorashooyinka la sheegay inay ka dhacayaan waxaana taasi keentay inay dadku bannaan baxaan muuqaaladan ayaa waxay yihiin dhowr sanadood ka hor maanta oo kale madaxweynahan ayaan inta badan fagaarayaasha lagu arag waxaana uu imika joogaa dalka Switzerland halkaasi oo caafimaadkiisa lagu eegayo
cudurka faaliga ayaana ku dhacay 6 sannadood ka hor laakiinse maalintii axaddii ayaa waxaa telefishinka dowladda ee dalkaasi aljeeriya laga akhriyay warqad uu soo qoray madaxweynaha 82 jirka ah taasi oo ku sheegay in haddii uu doorashadan abriil ku guulaysto aanu xukunka dhammaysan doonin ee sanad gudihii uu doorasho kale ku qaban doono su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan haddaba inay aqbali doonaan dadka bannaan baxayay ballanqaadkiisaasi magaalooyin kale oo yuruba iyagana waxaa ka dhacay bannaanbaxyo lagaga soo horjeedo inkastoo ka ugu weyn uu ka dhacay dalka faransiiska halkaasi oo ay ku nool yihiin jaaliyad ballaadhan oo aljeeriyaan ah bannaanbaxan ayaa ka dhacay baris axaddii dadkana xukuma maba ogeen waxay yihiin meel qarsoon bay ku jiraan waa maafiya weyn waa ina la joojiyo waxaana rabnaa cadaalad waxaana u baahannahay dimuqraadiyad iyo xorriyad doorashooyin sax ahi kama dhacaan aljeeriya maamulka ayaa hawshiisa iska wata kuna shubta doorashada sida waddamo badan oo la jaara aljeeriya muu saamayn gugii carabtu laakiinse 7 sannadood kadib gugaasi ayaa dadka aljeeriyaantii waxay imika u diyaar u yihiin in isbeddel dhaco marwab waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkana nagala soco BBC Somali Twitter iyo waliba Instagram wali waxa ay noo soo socda oo aad qaybta dambe ku daawan doontaan faaqidada ciyaaraha ee caawa oo aanu gabi ahaanba ku eegi doono ciyaarihii ugu dambeeyay ee horyaalka dalka Ingiriiska iyo qodobo kale sidoo kale waxaanu eegi doonaa wiil qaxooti ah oo si degdeg ah u bartay habka loo dabaasho kana yaabiyay qubarada caalamka isagoo waliba doonaya in uu sanadka 2020 ka qayb noqdo ciyaaraha Olombikada ee uu noqdo kooxda u ciyaari doonto qaxootiga adduunka wararkaas iyo warar kale ayaanu qaybta dambe idinkugu haynaa ee ha inaga tagina habeen wanaagsan mar labaad wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamka waniga waa maxamed cabdi xaraari balaadan xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn shir loogu magac daray shirweynaha haweenka ayaa muqdisho lagu qabtay iyadoo toddobaadkan dhamaadkiisana loo dabaaldegi doono maalinta haweenka adduunka xabad joojinta dagaalada Yemen ayaa lagu soo waramayaa in aanay caga adag ku taagnayn isbeddelka cimilada ayaa ka dhigaya saadaasha hawada mid aanan la hubin roobab aan la filayn iyo kuleel daran ayaa horseeday inay dadku jahawareeraan laakiin dalka Japan ayaa isku dayaya inuu isticmaalo tiknoolajiyada cusub iyo aqalka macmalka ah oo si ay u caawiyaan mas'uuliyiinta iyo dadweynaha inay ka digtoonaadaan marka ay soo socdaan masiibooyinka sida tsunamiga Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa inooga waramaya baahan yihiin hab ballaaran oo raadaar ah laakiin meel walba lagama heli karo intay gaari karaana way xadidantay warka hawada ee dalka Japan waa hab cusub oo keenaya kombiyuutarro ka shaqaynaya marka satellite-ku roobka uu arko oo markaa keeni kara in adduunka oo dhan roobku meeluhu ka da'ayo la qiyaasi karo waa meesha ugu weyn ee hawada laga qiyaaso 3,000 oo dareemo dhinaca hawada ah iyo 2 satellite ayaa la isticmaalaa si joogto ah ayaa wararka looga sii daayaa xafiiska xarunta ee Chiba waxay keenaan warar wanaagsan oo dad badbaadin kara marka hawadu ay xun tahay 2011 tsunamigii dhacay 18,000 oo qof ayaa ku dhintay Japan laakiin raadaarada ku yaala waddanka Japan iyo doonyaha xeebta joogay dhinaca Fukushima dhab ahaantii way dareemeen isbeddelka mawjadaha habka raadaaradu markaa ka hor may dareemi jirin tsunami raadaaradu waxa ay dareemeen mawjadaha kacaya 3 ilaa 10 mitir meelo u jira ilaa 20 kiiloomitir haddii aan sii ogaan karno tsunamiga 10 ilaa 15 daqiiqo ayaan heli karnaa si aan uga baxno waa wakhti muhiim u ah inay dadka isaga baxaan guryahooda iyo xafiisyada 4 sano ugu dambeeyey cimiladu aad bay u kululayd isbeddelka cimilada ayaa la leeyahay kuleelkii adduunku kor buu kacayaa arrinta laga warwarsan yahay waxa ay tahay cayaaraha Olombiga ee ka dhici doona kal dambe
tokyo waxaana laga wada hadlayaa sidii waaberiga cayaaraha loo bilaabi lahaa si loo joojiyo dad inay u dhintaan kulaylka faraha badan halkan laga sii daayo wararka hawada waxay ka shaqaynayaan habka ugu fiican ee dadka daawanaya ay u heli karaan meel hadha ama dabayle qiyaasaha loo baahan yahay in la saadaalin karo hawada berri dhacaysa ayaabaan sahlanayn hab cusub ayaa la doonayaa in la helo oo taa macnaheedu waxa ay tahay in aakhirka laga kaaftoomo kharashka faraha badan ee laga yaabo inuu ku baxo hawa raadisiga ciid aljazaa'irli oo ah qaxooti reer suuriya ayaa ka yaabiyey khubarada dabaasha kadib markii 12 bilood oo kaliya uu ku bartay dabaal wuxuuna hadda ku haminayaa in uu guul ka gaaro ciyaaraha olombikada 24 jirkan ayaa ku sigtay inuu badda Mediterranean-ka ku dhintay isagoo doon yar oo alwaaxa la socday markii uu soo galayay Yurub hadda waxa uu magaalada London kula nool yahay qoys British ah wuxuuna rajaynayaa inuu olombikada 2020 kaga qayb galo kooxda qaxootiga adduunka habeen anigoo fadhiyo guriga oo YouTube daawanayaan waxaan arkay filim ku saabsan Michael Phelps waxaan go'aansaday inaan noqdo qof cusub oo u dabaasha sidiisoo kale sanad ka hor ciid aljazaa'irli ma dabaalan aqoon badda Mediterranean-ka ayuu ku dhiman gaaray isagoo la socday doon yar hal sac markaan soconnay kadib waxaa istaagay matoorka doontana inay jabto ayay bilowday dadku way qayliyeen inay noo dhammaatay ayaan u qaatay oo aan halkan ku dhimanayno wuu badbaaday ugu dambeynna waxa uu yimi dalkan Ingiriiska wuxuuna bilaabay inuu isbaro sida loo dabaasho aad ayay markii hore u adkayd ma dabaalan karin in ka badan 2 ama 3 mitir 24 jirkan ayaa ku dayday koox tababaranaysa tababaraha ayaa i dareemay midkan wuuna daba socdaa ayuu yidhi waxaan u tegey tababaraha sheekadayda ayaan u sheegay wuxuu igu yidhi hagaag haddii aad doonayso waxaad nagu soo biiri kartaa khamiista dambe 20 sannadood ee aan ahaa tababaraha dabaasha weligii maara qof isagoo weyn dabaashii bilaabay markiiba ku noqday qof dabaasha aad u yaqaana iminka waxa uu la nool yahay qoys British ah wuxuuna bartaa luqadda Ingiriiska Barry iyo Debbie oo ah dadka soo dhaweeya ayaa gacan ka siinaya sidii uu luqadda u baran lahaa sharaf ayay ii ahayd inaan la joogo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan la joogo maxaa yeelay cidlo ma dareemaysid waa dad aad u fiican ciid waxa uu rajo weyn ka qabaa in loo xusho kooxda qaxootiga ee ciyaaraha olombikada haddii aad wax maskaxda ku hayso haddii aad wax ku haminayso haddii aad dhakhtar doonayso dabaal ama macallinnimo iyo wax kastoo kugu jira 100% geli waxay ahaataba ha isdhiibin wal markana waa faaqidaada ciyaaraha toddobaadkane waxa stuudiyaha ila jooga Maxamed Axmed Deysane maxamed toddobaadkan ciyaarihii ugu waaweynaa ee dhacay Sabtigi iyo Axadii maxaanu ka sheegi karnaa ciyaaro waaweyn ayaa dhacay oo Watford waxay 2-1 waxay uga adkaatay Leicester oo macallin cusub u yimid Brendan Rodgers oo guuldaradii ugu horeysay la kulmay Fulham laftigooda waa tii macallin cusub ayaa u yimid Stoke Barker ayaa u yimid 1-2 ayaa looga adkaaday oo Chelsea ayaa 2 ku adkaatay waxa kale oo wada ciyaaray Tottenham iyo Arsenal oo London isla degan ayagana waxay isla dhaaf waayeen 1-1 ayay isla dhaaf waayeen Manchester City waxay 1-0 uga adkaatay Bournemouth taasoo hogaanka ay ku qabsatay 2 dhibcood Brighton waxay uga adkaatay 1-0 Huddersfield oo ah kooxa dhici doonta kamida Premier League ciyaarta ugu xiisaha badan ee indhaha lagu wada hayo waxay ciyaarta Liverpool iyo Everton ee wada ciyaareen waxayna ku dhamaatay barbaro maxaa khaldamay oo Liverpool maxaa ka celiyay guusha ay la rabay inay higsato ama la islaha waxa ugu weyn oo Liverpool celiyay waxay ahayd weerarkii lagu yaqiinay Liverpool ay ku socotay maysan gelin oo waxaan la soconaa inay ciyaartooy badan oo weerar ay haysatay ay weerar qaadi jirtay taas u suurtagali weysay laakiin dhanka kale haddii aan fiirino Everton laftigeeda waa inaan mudnaanta siinaa lafsaanteeda waxay la timid ciyaar aad iyo aad u weyn ayay la timid oo Liverpool waxay ka celisay geesaha ayay ka qabatay Alexander Arnold iyo Robinson oo labada dhinac difaac uga dhilo aad iyo aad u weerartamo ayay ka celiyeen marka aad iyo aad u daay energy way hayeen oo Everton ma istaageenbo Everton waxa ka go'oneed inay guul keento ama barbar dhac keento taas ayaa keentay inay Liverpool dhaqaaqi weyso waa gartay ciyaaraha markay dhamaadeen mar uu qabanayay shir jaraa'id coachka ama tababaraha kooxda waxa ka careysiyay wariyaal wareysanay maxaa dhaliyay in uu macallinku sida u caroodo saaka macallinka waxa ugu weyn la weydiiyay waxay ahayd
maxaa iskugu day weysa 100% inaad guul gaartid oo weerar xoog lagu qaadid Everton marka asigana waa ku jawaab aniga PlayStation ma nihin oo dhaa footballka PlayStation oo kala ma laakiin Liverpool weerarkii lagu yaqaan iyo gool dhalintii lagu yaqaan maysan sameyn taas ayaa waxay keentay in wariyaasha ay weydiiyaan ay dhahan maxaa keenay Liverpool saddex kubad ay helaan laba kamida Salah ayaa goolahayaha ula tagay oo dhaliwa Bedford ayaa ka badbaadiyay laakiin waxay ahayd inay ka badiyaan ayaa sida Liverpool lagu yaqaanay hoggaanka meesha wax ka khaldameen ahayd sidii ciyaarta u soo galeen line-up-kooda sidoo ah way dhici kartaa oo Liverpool sida aan ognahay xilligii hore ciyaartooyda ay haysteen oo ahay Saïd Mane iyo Mohamed Salah iyo hore Firmino ayaa hore u joogi jiray dhaxdana waxaa joogi jiray Henderson iyo waxaa joogi jireen iyo Milner iyo Coutinho meesha uu ka baxay hadda waxay Keita yimid marka inta hadda dhaxda uga dheesho Liverpool 5 gool kaliya ayay dhaliyeen marka Liverpool ma haystaan sida Silva City joogo kale Kevin De Bruyne kale ma haystaan taas ayaa marka waxay keentay in Mohamed Salah iyo Firmino iyo Mane kubada fiican ay soo gaari waayaan ay u baahan yihiin nin kubadaha dhiso goolasha meel fiican ka dhaxbixi taas ayaa waxay keentay Liverpool gool dhalintii oo badneed ay dadka dhali jireen inay ka yaraato kubadda markay dhaxda ka gooyaan isla markii weerar xoog leh ay ku qaadi jireen oo weerarka ayaa la gaarsiin jiray Salah xataa sanadka hore ilaa 40 gool ayuu dhaliyay sanadkan uu maleynay inuu gaaray sababtoo raggi dhaxda oo kaalmo u keeni jiray meesha ma joogaan waa gartay ciyaaraha kale aad ka xiisaha u lahaa kamid ah Arsenal iyo Tottenham oo iyaguna bareejo galay Arsenal meesha laga galay afraad ama saddexaad Arsenal maxaa iyadana nooga sheegi kartaa Arsenal xaqiiqadii ciyaar la yaab leh ay soo bandhigtay sababtoo 5 ciyaartoy ay dhaxda dhigtay Matthew Kutus Shakira Ramsey rag badan ay dhaxda dhigtay taas waxay u suurtagali weysay Tottenham inay gasho Arsenal waxa lagu yaqaanay difaac jilicsan oo dhaqso wax laga dhalay taas waa suurtagali weysay kubad degdeg ay ku heshay oo Ramsey aad u fiican oo ka dhaliyay kadibna garaasheeda ayay xirteen Tottenham waa gal laakiin goolkii laga dhaliyay ayaa wuxuu keenay in goal offside rigooro looga dhiga ayagana loo siiyo markooda ama bayaanga asna oo ka qalda guushi wax yar ay u jirta laakiin waxa u malaysaa Arsenal sanadkan sidii hore inay ka fiican tahay ay xoogay Omri oo soo dhisa qaasatan difaaca iyo dhaxda oo aad iyo aad uga adkeynay oo haysto dhalinyaro fagaraasho waxay ku eedeynayaan inuusan soo gelin laacibiin lacag badan uga fadhiyo sida Ozil oo kale arrintaas oo aad loo qabi kara maaha tababaraha kulli aniga waa la qabaa Ozil ciyaartaas inuu fadhiisay sababtoo wuxuu u baahnaa dad dhaxda ka dhilo aad u shaqeeyo u baahnaa oo shaka iyo ciyaartooy kale Matthew Gunduz oo markii dambe lagu bedelo Traore aad u shaqeynayaan aad wax raacay marka Ozil kubadahu dhisan laakiin wax raacida aad ugu liita taas ayaa keentay gabagabadii barnaamijka ayaan ku jirnaa kala horeynta kooxaha maxaa iska bedelay ilaa hadda sida u maleynaysa iyo maxaa saadaalinaysa inay ku dambeyn doonto ciyaaraha sida aan ognahay kala horeynta City ayaa hoggaanka qabsatay oo 71 ay ku qabsatay meesha Liverpool ay ayada ka leedahay 70 meeshaas waa iska bedeshay dhaxda laftigeeda waxa malaysaa isbedel inuu ku yimid oo Tottenham loo maleynay naftigeeda inay wax qaado hoos ay u soo dhacday laftigeeda oo 61 ayay timid laftigooda Man United ayaa timid laakiin isbedelka afarta hadda wuxuu u dhaxay doonaa Tottenham Chelsea Arsenal Man United ayuu u dhaxay doonaa marka lama oga cidda sanadkan gali doonto afraad laakiin waxaan sugaynaa ciyaarta dhex mari doonta Arsenal iyo Tottenham ayaan sugi doonaa ciyaarta dhex mari doonto Man United iyo Arsenal weeg soo socdo Maxamed Axmed Deysan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay inta ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijka caawiya caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina inta aanu mar kale dib u kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo